السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي القالقة اسكو سو نقد وناكسن وولاشي مانتيق عنود إيوه إيوه أنا إسبراي مركان بكوسس مركان واسنقانا واسنقاني سودا وادا ما شاء الله مانتيق سودا وو فاتوشهم ديكور سودا وو دكان كان شوفنا أنا قلنا جنالتي كسو دو مانتيق أصحابتي ذا محلين ما أنت معنا هاي ساعة أصحابتي وين السلامي سبسكرايب سارة عجلة waxaan ku isgaarsiyo follow soo nasoo dhaha waa ka saade subscribe noo saara free ku tahay anaga dhiirigelin noo tahay waa walaalihiin Faatuush iyo Maandeeq oo in leh meel kasta aad joogtiin waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo barwaaqo baxbax ya asxaabay video ugu dambeeyay Faatuush aan doobnay ayaa waxa ka imaaday dood badan waxaa dhahay sixir waxaan fahan sixir wala ka daran صح يا dadkii si qaldan ay u fahmeen waxay ahayd barnaamij aan soo waxaan ku iri naagta iyadoo caafimaad qabto oo guriga joogto ninkeeda intuu baxo naagta dariska guursanayo ayadaa waxay leedahay in haye hawsha waa iga dambeysay ha marka intii ala igu qabsaday xataa waxaan gaaraa commentiga xiro waay danka TikTok waay xiray ay naya in malihiin abo dangal oo dhan abo naagti nag la qabo oo dhan waa igu soo shamuumeen soo marka maanta Faatuush ma la rabaa opinionkeeda in la ogaado ha Faatuushna opinionkeeda inaan ogaado iyo aniga inaan horta si qalad wixii ii fahmay dad waxay dhahnayaa diinta islaamka ku xad gudubtay aniga diinna kuma xad gudbin qofka inuu leeyahay marka qofka inuu leeyahay kama wado in oo rabbaaniya ama kama wado مثلا tusaale ahaan aniga wiilalan badana asxaabteyda wiilala u badan yihiin ama walaalo ama qaraabo ama familkeyga ehelka yani ama abti ama adeer dadka waxaan ahay dadka gabdhaha badanaa ku xiran yihiin dadka waxaan ku xiranahay wiilasha asxaabul wiilal idin jira xaafadeeda haye marka maadaama dadka ku xiranahay ra'yigooda aniga way saameeysaa marka waa dhageystaa taas way aniga xataa aaminaad rag iyo waxaas iyo waa ugu yartaa sababtu waxa keenaysa waxa waaye wiila ku ahayno dhaqanka wiilasha waxay aaminsan yihiin oo dhan aan aaminsanahay you are strong yeah waayo marka aan arko si u fakarayaan aniga isku sameeyaa ma fahan because gabar walba aniga camal waayo soo marka maxaa u diiday marka wiilasha say marka mesela marka aan dhaho gabdhaha maxaa ka aaminsan tahay waxay ka aaminsan yihiin ii sheegaan single mother maxaa ka aaminsan tahay markaan dhaho waxay ka aaminsan ii sheegaan naagaha maxaa u guursatiin afarta naagood way ii sheegaan marka halkaas aan ka tusaale qaatay oo soo waxa taagan tahay wiilasha ayaa badankooda ii sheega opinionkooda aruuriyay waxayna dhaheen rag waxay u guursanayaan sabab baa jirta sabab ha haddaba Maandeeqay anigu waxa aan aaminsanahay sabab ma jirto ragga Soomaaliyeed waa iska guursadaan anigu taas aaminsan okay horta inkastoo TikTok waxyaabo badan aan ku arkay laakiin wiil meeshaan aan TikTok aan ku arkay waa inta inii soo gudbinayo u sheeka asxaabteyda haye marka waxay noo raadinaysaa video ee leedahay kulli qofka bidar ma laga dhageystamaya laakiin aniga maanta Faatuush ahaan hadaa i weydiisid qofka bini aadanka gabar waxaa jirta badan gabdho badan oo waxaa jirta ayagoo gurigooda dhaqanayaan oo reerkooda dhaqanayaan oo waxba aan samaynin oo wax iina aan lahayn hormaarid aan fiiriyaa wiilkan waa TikTok sax TikTok aan aad ka arkay ano gabar kala guursana markaa dhasho waxaa la yaabaa gabdhaha markaa dhahdid gabar kala guursana markaa dhasho su'aasha ugu horeysa weydiina waxa waaye maxaa aan iga weysay walaashay waxba isboojeen runta hadaa rabtid ninkaa inuu ku dhahaa ka sugin walaal waxaas ka waay inuu ku dhahaa ka sugin masaakiinta iska tahay niyad inuu ka jabiyo marba inuu ku haysto rabaa laakiin waxa ogaataa wax in laga waay in meesha jiraan waxa laga waay caloola deesto walaashay runta ku sheega okay waa si fagaanaya wiilkan waxaan ku sheega asaga kaliya ma Faatuush macnaha wiilkan wuxuu yiri kuma dhahayo qofkan waxbaan ka waayo laakiin waa laasim waxba laga waayo gabadha ku soo qortay Facebook page-keeda waxay ku soo qoratay wiil baa nin baa sheekaynaya wuxuu yiri waxaan qabaa afar naag wuxuu yiri mid waa ku labistaa yiri haye kayga fiirsaya mid waa ku labistaa calashaan labiska ku qurxoonta waa naag style qurux badan dabcan saa u fahmay naag lagu labisana waa naag aad u qurux badan wuxuu yiri midna wuxuu yiri sheekadii waa mid waa ku labistaa midna wuxuu yiri maxay ahayd mid kale cunto karis iyo wixii ilmaha iyo ya maya cunto karis sariirta iyo midna ahelka runtu haye
fiiriya mid waa ku labistaa midna ehelka u roontoona laba halkaas ma ku haysaa midda kale hata muxuu yiri wuxuu u roontaa dhaqaalaha ku fiican tahay midda kale wuxuu yiri guriga u fiican tahay calashaan marka afartii naagood isweydiin mid waa lagu labistaa mid ehelka u roon tahay mid dhaqaalaha u roon tahay midna guriga u roon tahay marka iyo caruurta marka waxaan isweydiiyey afartaas kuma jirto mid dhahayo qalbiga u roon tahay hadda afartaas ma aragti mid ku jiro qalbiga u roon tahay qalbiga midaan jeclahay qalbiga u roon tahay ma ku arkin waayo waxaad halkaas kugu cadaynayso nimanka inay u guursadaan dana gooniya ayse u guursanba wax jacayl ama qalbi iyo waxaas ayse u guursan ina adeeray aan ku dhameeyo okay marka su'aal aan qolo waxaan ku dhahay miskiin afartooda hal qof oo qalbiga u roon kuma jira miya mid baa soo booda wuxuu yiri maandeeqay midda guriga u roon taasaa qalbiga u roon okay daamis taas marka qalbiga u roon oo guriga u roon oo ninka u roon daamis laguma labisa karo daas waa mid kale loogu labista loo raadsaday daas tolka uma roona daas waa mid kale tolka u roon loo guursaday dhaqaalaha uma roona daas waa mid kale dhaqaalaha u roon loo guursaday afartan naagoodba midba meel ay ku xuntahay mid kale kabtaa loo guursaday soo marka adiga haddaad dhaqaalaha u roonaan lahayd naag dhaqaale u roon oo kale lagulama aadeen adigaa dhaqaalihii u fiican haddaad lagugu labisan lahaa qurux badan tahay oo macnaha quruxda qasamaantii ilaahay madow iyo maahan dadka dhinacaas doongood daaweyn qurux waxaa jirto ilaahay qofka naturalka yani beautiful adoo madow aad labisan kartaa oo qurux badnaan kartaa adoo xoogaa hilib leh baad labisan kartaa kama wada quruxda cayilna maahan madowna maahan ilaah kuma daranta tolka haddaad u roonaan lahayd mid kaloo tolka u roon lama raadsadeen guriga haddaad u roon tahay mid kaloo guriga u roon lama raadsadeen afartaba haddaad isku haysan lahaydeen ninkaas the only reason uu ku guursan kara waxay tahay haddaa xogga caafimaad ahaan ama ninkii uu ilmo rabo oo adigana dhalidii waxsay kugu dhib tahay ama ninkii aad ka dheer tahay asagana kuu imaan karin adigana u imaan karin that's the only reason uu ninkaas u guursan karaa ra'yigayga waa taas maandeeqay anigana meegaysay horta hore gabdho badan oo waxaa jira kulli intaas sheegta isku wada haysta gabadhi haddii bini aadanka la dhihi lahaa nin kasta oo maanta tagaa oo naagta ka guursada mid kale wuxuu ku guursaday wax buu tan ka waayay horta hore wax badan baa qasmaya si aan aaminsanaaba nimanka wiilasha Soomaaliyeed markay guursanayaan ayaga maaga qaar waxay ugu guursadaan gaba qofkaasaan ilmo badan baa raba oo reerka baan badinaya qof wuxuu u guursadaa choice-kiisa ah u leeyahay afar baa ii banaan ee waan samayn karaa qaar waa laga dheeriyahay ilmo badan su'aal qaar waa laga dheeriyahay laakiin haddii ay imaan lahayd qof waxba iga maqan guriga yes dad wax ka maqnaan karaan ma jiri karaan oo qof kale ka heli kara yes wuu jiri karaa qofka hadduu dhibo kale uu dhibaatay qofka dabeecad fiican uu helo way dhici kartaa haddii si kale loo fiiriyana oo la dhihi la bini aadanka qofka soo isla nool ha is wada fiiriyo hal la dhihi qofka gabdhuhu waxay heli lahayn ninka nuucyo badan ay uga tagaan waxyaalo badan ay saka jeclayn oo asagaba uga tagi karaan okay meesha ka tigitaan lagama hadlaayo waayo ayada afar nin ma guursan karto laakiin ninkan Joyce uu haystaa ayada sidaasan hafa Joyce waa inay gurigeeda dudumisaa ama waa inay ku sabartaa Joyce kale uma banaano laakiin ninkan maadaama Joyce uu u banaan yahay asagoo gurigiisa dudumin ayuu hadda waxa tiri waa inuu ilmo batsi ku jiro des intii waa kaas halkaas soo gashay inta ayadu ilmo batsi ku jirtaa soo ilmo batsiga daamiynas adiga nisan mar hore waa 20 cunug inuu dhalo adiga 20 ma dhali kartid soo daamiynas adiga intaas la gursan in ma u taqaanaday hadda qofku in waxa u aqaan qof wax uu leeyahay ka saqad magaceedi inteeda waa dad faatuush inteeda way dabeecad xinta kaliya way fiican tahay ma ogi laakiin ilma dhalis markay noqoto hadii uu yiraahdo in marka aniga khalad adiga inta saa u fahamtay dab marka inta saa u fahamtay ana khalad aniga saa u fahamsanaa ku sheegaya aniga inta waxa u fahamsanahay yani ninkan ilmo badan oo raba inuu dhalo yani naagtiisii gurigiisa ilmihiisana wuu jecel yahay marka saas darteed maadaama adiga ilmo badan aad dhali karin oo hal qof aad tahay saas darteed daamiyay sababa jirto in okay aan beddelno marka mawduuc in caafimaadka aniga waxa u aqaana video hada daawanaysa muxuu rabtaa calool bay deysatay moogta calool bay deysatay hada muxuu dhahay aniga waa wajah fiir calool deysatay aniga ma aqaan rabaha aad wada taas calool bay deysatay camal waado dhaad Allah dib kala magaceedu ma qabto walbisa saakadan waxa u xiran weysay halkaan xabo in waxa saa leedahay okay aniga inta saas uma fahamsanay aniga inta waxa u fahamsanahay علشان ده reason سببها واحد صح واسكو ما لا سببها reason سببته كنت waxa ninkan ilmo badan ma daam raba midha marka halaf marka ma la dhigi karaa ninka qoyskiisa qabiil yar oo iska jira
inuu ma laga yaaba taas masamadii waaye commentiga ku soo qora idinkuna anigu ma aaminsanin qofkan asagaa choice ka samaystay gabar maanta gabdho badan waxa jira guri joogo gaariyada oo ilmeeda u fiican oo wax kasta saa u kala waxaysa oo ninka dhaqaalihiisa waxaysa oo saa u kala rogaysa haddana ninka doo baxay Afrika hadda fiiri nin Afrika guursan ada daran ma kula hamiya ma muxuu ka yaqaan ada daran kula hamiya okay ada daran kula ma hamiya waa ada daran laakiin muxuu ka yaqaan anu taasan ka hadlay in ma hanada tay hadda fiiri gabar inta joogta nina bax Afrika guursan gabar guursanayo ma garanayo waxay tahay muu garanayo ma dhihi karo heblo waxbay karin weysa laakiin tan xagga joogta Afrika waxbay ii karin kartaa ma dhihi karo just wuu damcay wuu guursado waan u banaantahay okay damcaas waa damc qaldan waayo waxa waaye laakiin aniga runta badanaa waxaan laga hadlay waxay tahay markaan wiilashaas aan arkay si ku dhaqmayaan si ku hadlayaan iyo markay qoraalada laga qoro nimanka afarta xaasqado sidaas darteed ayaan waxaan ku yiri naag walbool oo naag la guursado daaminis wixii laga waaya qof kale laga raadsado anu taasaan aaminsanahay ninka laakiin ilmo badan inuu badiyo u dhala u guursanayo ama ilaah kuma darnaade gabadha caafimaad ahaan u guursanayo ama gabadha ay ka maqanta u guursanayo kale qofkaas waa excuse u haysta laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa ninka without excuse guursanayo danahooda way dalbeen laakiin gabadha uu la joogo wax uu ka waay ama ka maqan ma uu ka waaya jirto ma aha okay midkan hadda dhahayaan gabar waa ku labistaa dhahayaan ninkaas afartii laagu guursado asaga ma ayar suuqa yeah because ilaahay hadda fiir hadda ayar suuq kasta uu yahay markii la isguursanayo qofka bini aadanka inta la isfiiriyo lama dhaho hebla 100 baa u dhima anaan isla joog iyo wanaag iyo isku dulqaadasho iyo qofkas qiimihiisa isku jooga 100% ninkuna ma naagtuna ma okay maya anaga kama hadlayno ninka iyo naagta laakiin ninka sidoo oraahda ku soo gudbiya ama qoraalka ku soo gudbiya waxay tahay afartan naagoodba midba waxbuu kula joogaa صح so that means yani qoftan wuxuu ka waayay qof kale uu ka raadinaya afartii isku kabay hatta wiilasha commentiga markaan aqriyay qof walba waa ninkaas waa dhameystiran yahay ninkaas waa dhameystiran yahay waa boqolow qarrac ku soo wada qoreen ayagoo ku kabaya macnaha ilaa calashaan afartii waa ka dhameystiran yahay so macnaha gabadha qaldan anagu victim blame meedahan dadka qofka victim ka la blame garay anaga dumarka ma blame gareynayno waxaan blame gareynayna waxay tahay riisamada nimanku badan ay guursadaan aan ka hadlaynaa riisamada u guursadaan waxa waaye sida ninkaas oo kaleeto naag quruxda u qurxo oo naag ehelka u roonta naag dhaqaalaha naag guriga macnaha marka isku aruurisid ayaa ku sheegayso wiilasha hadda waa aragtay wiilkan TikTok mid kamid ah iyo wiilasha mideel kale walaaladayda qof walba ra'yigu ka dhiibanaya laakiin ra'yiga markii la isku soo wada daro 85% waa iswaafaqaya ayagoo ku dhahayaan gabadhan ilma ii dhashay ma raba inaan furo sida kale waa fiican tahay laakiin reerkayga uma roona dhaqaalahayga uma roona saas darteed ayuu meel kale u raadsaday aniga taas aaminsanahay kana raala noqda hadaad qalad u fahamteen qalad maaha marka qofka fikradiisa ma taqaana inaad fikrad soo bandhigtid oo qofka lagula falanqeeyo wax qalad ma qofku fikrad uu soo bixin hadda ani fiir waa sax hadana labadeena kala fikrad aan nahay waana isfahansiinin haddana adiga hadda u aaminsan tahay there is something in aniguna waxaan taaganaa ma ahan qofkan weyn asaga choice-kiisa samaystay asaga inuu reer kala yeeshay laakiin ma dhahay maanta intee dad wari hebel maxaa u guursan ma dhahay islaantii waxaasan ku arka marka mid kala doontay ma dhahay asaga kuusoo raadina waa la ii baneeyay saanay waaye waa ii banaan tahay la ii baneeyay qararada u dhahaya marka gabadha waxay aabiyaysa inay qarqarin waxay aaminsan tahay صاحبي يا اسكصح وحا يا انا صح انا adiga isa sax ma ahanba daaminis hadda walba ka dhameystiran tahay waxba laga yaabaa intuu baxay without excuse ama sabab la'aan intuu baxnaag u guursaday waaba nin mental aan taaganay qofka duu mental yahay aniga waxba kama qaban karo laakiin aniga dadka caafimaadka qaba excuse waxba jira sabab macnaha sabab ay u guursadaan nimanka caafimaadka qaba oo maskaxda ka fakara caadiga oo normalka haddaan u fakarno sabab la'aan iskama guursadaan wuxuu leeyahay aniga waa ku jeclahay ilmahana ay dhashay maadaama aan ilmo badan rabo inuu ilaahay siiyo sababtiisa u guursanaa ama waad iga dheer tahay maalin walba kuma soo safri karo maadaama adiga ilmihii meel kale aad la joogtid anigana halkan aan ka shaqeeyo أنا حرام كل عمر ربع صبرت سأقول سنة ما دام أديك عاد حنو صنتها هي وربيني المك لا نشوف صبرت سأقول سنة يعني حالي هذا without excuse سبب أيو وكان صدق أو الفهم كره أو معقولة أو قفك عقلك أو صاحب كله وكوكو سنكره لكن نك أصلاً أنت سنة ربي وحارك نين ناقو رادينا المو هيستا ناقو قارد وكا قبلها متقانا أبا يعني ناقا دلينا ربا نك سمحوا أقول سنة سقف حنو صن ما ناقا دلنا دربتي ناقتا المكو هي سعيد إسكال تشوك حتى لذا أيضا المهاز كصاحبه سيمبل ناقا دلنا ربا أوكي نك صدق المو بقول سنوي
I know. what reason uu guursanooya there's no reason marka waxa waaye qof kasta jiro marka waxaan ka wadaa qofka hadduu sabab ninkaaga intuu kuu yimaado ku yiraahdo walaalay aniga ilma badanaan rabaa maadaama ilaahay afar ii baneeyay xabad kale taan ku qabsanaa waa excuse waaye adiga ku jirtaa haddaa inta maseertirkaaga qaadatid afkaaga yamaa tirahdid hadduu ninkii kaa dheeriyaa walaal inaa xaaraan ku dhaca ma rabi gabadhaan guursanaa sidoo kale tan waa excuse waa sabab ilaahay kuma darnaadee hadduu ku dhaho walaalay aniga inaad maadaama aad xanuunsan tahay rabin inaa ilma dhashid haddeertaan aniga saas ara macnaha waa sabab macquula oo qofka maskaxda leh uu ku fakari karo laakiin nin intuu iska baxay without excuse ama sabab la'aan haba naag ifiirina calaf waa calaf guurku waa calaf waa fahamsanahay laakiin calafka waxaa ka horeeya inaad adiga meel fiiris bilowdid bal calafkani waa kana hay soo raadsada ma soo raadsanayo laakiin waa inaan meelaha fiiriya xabadkan xabadkii miya waa inaan meelaha raadiya oo telefoon soo qoraa oo nimanka telefoon siiya oo inaan available ahay aan meelaha aan tagaa iyo gabar baan ta kor suuq isku raacno gabadha maalinta markaa suuq isku raacno you know ani halkan iguma qorno inaan available ahay samaha ayadana kuma qorno labadana waa isla soconaa waa caadi laba gabdhood isla wada socdaana xalaalaan tegaynaa 10 qofooda lambar ka soo qoranay abay lambarka isi waxaan tegaynaa iskuul lambarka laga soo qoranaa dukaan kala tegaynaa lambarka laga soo qoranaa maalinta waxaan ku yiri saaxiibay ina single mother tahay ama available aad tahay ma dadkan intay kaaga qorantaan ku yiri markaas tirhee maxaa waxaan ku yiri aniga horta taali soo raasada ma lihi laakiin waa ka yaabaan ku yiri maanta waxay tiraahdaa how da possible macnaha macquul ma ahanan ku yiri waxay tiri adiga ma ogid waxaa jirto qaab nimanka inaad available tahay loogu sheego waxaan dhaabaa ma ii sheegtid aan ku yiri waxay tiri available markaad noqotid aan kuu sheegaya hadda inaan raadiyaan rabaan hadda ayu available next video bay ka jawaabi doontaa asxaab subscribe noo saara noo daawada insha Allah dooda ugu xigto ugu kulul oo waxaan ka sheekeynaynaa sadohda maxaa ka aaminsan tahay ugu khatarsaneed oo aan rabnaa soo waxayno anay fituush hadda intaan video lamid dib ugu kulmi doono waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh